xirfad farsamo ay ku shaqaystaan male Soomaalidu in general markaan uga hadallo wax xirfadoo qofka Soomaaligu leeyahay laba shay u baa jira inuu wax iibiyo iyo darawal inuu gaari kaxeeyo waa labada xirfadood Soomaalidu xirfad kale ma ku maqasheen labada xirfadood bay leeyihiin xirfadda wax iibinta halkiina kan dad badan iyo waxbaaba idinka socday oo Soomaalidaaba baacimishtarka u badan baa arkay safarka xagga kama socoto waayo everything company weyn baa haysta qaanuuno adag oo aan ku ogolaanin inaad si fudud u soo gashayo cashuur iyo kanna waa dul saaran yihiin saadaradeed tijaarada Soomaalidu ay meelaha ka fururtaa hoos bay u foorartaa yani waxa weeye waa maqaaxiyo Soomaali wax ka gada intan qaxoontiga iyo qaxoontinimada ku yimi ayuu wax ka gadaya laakiin dad kale wax kama gadayo waa dukaan yar oo dirac iyo gogora diibinaya iyo intii yareed Soomaalidu haysatay oo inta ka gadaya marka ma aha baacmushtar u jeeda wadanka inuu wax ka iibsado saawgeed xirfadii baacmushtar ee Soomaalidu lahayd Yurub kama socoto siiba mana awoodi karo wax walbana company weyn baa haysto beesada ka faa'iidaya laakiin de quantity iibinaya sadaradeed adigu haddaad soo gasho iskaba ka bixinayso wax adigu aad wax ka soo saarayso ma xirfadda labaad ee Soomaaligu leeyahay waa darawalnimadaasay qaarkood marka ay shaqadu banaato yani markay wadanka shaqa la'aan ka dhacdo dee dadkan qaxootiga waxa ma shaqooyinka ugu horeeyay waayo hoos buu soo dhacda shaqadu marka ninka cad baa shaqada soo buuxinaya markay shaqadu yara furantay iyagu kuwa sare u yara kacayaan markaas waxa ku banaanaanaya dhulxaadkii iyo darawalkii iyo intaas banaanaanaysa حتى دول حركة سيرتيفيكيت باللغة 6 bilood inaad ka baxdo tad ma fiqs ka qaadata xaadimaysid ay ku oranayaan dhabarka ku xanuuni doona dhowbaadna weydiinaysaa pension iyo waxa weyn certificate ka seeta system wax loo xaaraa jira hatta hadda tiraadaan dhulka masaxo ma suurtagalaha waa inaad systemkii dhulka loo masaxay soo barataa idan waxaan uga dan leeyahay ninka Soomaaliga xirfad ma leh dadka Soomaaliyada siyaacaya qof xirfad lama jiro Soomaaliga xirfadiisa ama waa zero ama waa engineer iyo tabiib iyo grade ka sarana de koodii wadanka jooga haysta inaad gashaa aad bay cidhiidhi u tay ama nastan suurtagal maaha weliba haddaad xaggan kala tagtay shahaadada muctaraf maaha marka horeba adiga waxa lagu reebayaa aqoonsiga waraqahan aad seetiyo waxba kama jirayaan waa kii wadanka ku bartay iyaga la soo qaatay shahaadadoodii sita waa kaaka haddana weli albaabadu ay ka xidhan yihiin wasta u baahan iyo cid meel marisa iyo shaqadu inay xoog u furantiyo waxa waa ilaa injineerada oo dhan waxa laga yaabaa inay taxi drivers ka mid yihiin waa injineer waxaan soo qaatay laakiin markuu shaqo kale waayay waa taxi driver waa bus driver waa lorry driver waa ka saawgeed waxa weeyaan faqriga ka bixi maysid Soomaalida xagga joogta marka waa faqaro tabaqada ugu hooseysa bulshada ay la nooliyeen maal ahaan bay ka yihiin intaasoo dhiba waxa u raacda qurunka halkan kala tageen Soomaalida oo qabiilkii iyo isqabsigii iyo reer hebel ma arki karadii iyo wixiina hoostay ku sitaan سوقد waxa laga yaabaa wax kasto isugu yimaadaan inay isku qabsadaan inay masaajidda isku qabsadaan inay jaaliyadka isku qabsadaan in la yiraahdo reer hebel uma maamulaya meesha ka baxaantay reer hebel kala soo galay waxaan dadka kalena loo sharxi karin hatta haday dadka kale siraadaan warimankan dhexdhexaadiyo wuxuu sheegaa waa waxaan muuqanaynin la arki maayo waxa isku haysaa إلا هوستا واحد كهيستا نمر ريبلا ماشي هيستا مركا دتك كله واحد وشيكتو حتى عادي ما جرو مركا بروبلم كينا لنا أركي مايو وضد ديدي ما تو يصير دحادي بروبلم ما شيكتان موقن مايو وانا يسكون دقنتين وكلا بيحي ميسان ده واحد جاي أنا ترى ده نيجاتيف وما دخل يساب البصة تفكير شيء هي بصة تفكير حلقة كتيرة كو وحوغاغا darawalladu soo direen
ama oday afar caruura haysto afartuba dee faranji ka noqonayeen intii ay la yaryaraayeen wixii la yaraayee la siisiinayay uu ka xejiyey uu ka soo diray oo yidhi ama guri aan ugu dhisayaa meeshii ama ay hooyaday guri u dhisa ama baadiye ka keena islaantii iyo magaalada geeya ama xajka geeya intaasaa maqashaan soo maaha intaasoo sidii lagu keenay ilaahay un og yahay inay xaaraantii inay xalaal tahayna anigu aanan aada u hubin in badanoo ka midi xaaraan iyo xalaal waxay noqonayso aanan aada u hubin kaasi waa jiraa qadiyad labaad baa jiro oo ah gabadha Soomaaliyeed ee muslimadda ee diinteeda ku mintiday shicaarka islaamiga bay muujisay xijaabka iyo marada weyn ay jiidayso marka dad muslimiin oo meesha iska joogay oo hurday bay dib u kicisay xijaabku inuu dadka badh intii islaamka uun si haysatay way ku faafiyeen intii luntay mooyaan intii xijaabka adkaysatay dee awal lama aqoon gabadh muslimad oo xijaabanidi waddanka kama jirin ta ugu badan baa khimaar yar ay madaxa ku xidhay iyo shaadhi surwaal sidatay laakiin qoladan marada weyn sidataa markay timi masalada xijaabka bulshadii kale way ku dhiirigelisay ka waa laga yaabaa gabadh muslimad oo cad oo xijaaban aad aragto ama gabadh carbeed oo muslimad oo xijaaban ama gabadh yani dadkii kale oo maradan weyn ku soo dhiiraday oo xijaabkaasina hablaha Soomaaliyeed way faafiyeen waxa kale Soomaalida lagu amaanaa quraanka ay qaybsan yihiin waxa laga yaabaa masaajidda Yurub ku taala inta ugu badan leh bisha Ramadaan Soomaali tukiyo oo kan dhafoorada xiiran leh musuuqa jooga inuu quraanka qaybsan yahay laga yaabaa ee Soomaaliya ka yimi oo hadduu bisha iska soomo inuu galaba xagga hore uu dadka tukiyo quraankaasna caam bay ku noqdeen oo ninka Soomaaliga marka la arko waxa la moodayay in dhamaantood ay wada xufaadiina quraanka yaqaaniin عنصرka kaliya ee Soomaalidu diin ahaan ay rumaysantay in la qabtaana waa masaajidna waa dhiseen oo wadanadaasi dumarka Soomaaliyeed baa dahabkooda iska ururiyay dhalinyarada Soomaaliyeed baa boqolka baan iyo $100 iyo $1,000 bixiyay bulshada Soomaaliyeed daara badan oo masaajida inkastoo aan ka cabsi qabo inay sidii kuwii Turkida iyo Bakistaantu dhisay oo kale inay noqdaan masaajida waxa caan ku ah masaajid baad soo galaysaa uno Soomaaliya 70aadkii halkay joogtay kontonada uun baa ku tukanaya warodaydan carruurtoodii meeday magaalada ku jiraan dadka tukanaya waa maxay waa kontonada iyo pensionista Soomaalidu masaajida waa dhisaan midadka qaarkoodna waxaanan anugu garanaynin inay sax tahay inay qalad tahay laakiin dadka kale ku ammaanaanna way sameeyeen Soomaalidu waa dad diiran oo meel kasta madaxa isugu tuura marka Soomaaliya qaxoontiyo shalay yimi oo Congress-ka Mareykan fadhiyo le Mareykan xukumaya Soomaalidan maqal Soomaali qaxoontiyo shalay tayimi oo Ingiriiska u fadhiyo European Union-ka inaan Soomaaliyeed baa u fadhiya oo le baarlamaanka Yurub baan u fadhiya Ingiriiska waa nin Ingiriis oo baarlamaanka Yurub u fadhiya nin Soomaaliyeed oo ordayo le baarlamaanka wadan Sweden ama kan baan ku jira ama inaan Soomaaliyeed oo le meeyarka magaalo Heblaayaan hay Mareykanka waa maqasheen magaalooyin ay meeyar ka yihiin habla Soomaaliyeed gabadh Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed gabdhaha ba isaga badan oo golaha deegaanada ee magaalooyin ku jira ma garanayo waxaas inay khayr yihiin iyo inay shar yihiin qofka de gaalada dhex cararay ee waxay walaaqayeen la walaaqay ilaa xadka uu soo gaadho laakiin waxa laga yaabaa bulshooyinka kale inay ammaan u haystaan oo yidhahdaan war nimankan waa niman active ma nimankii shalay tayimi iyo Congress-ka fadhiistay ama shalay tayimi iyo European Union-ka fadhiistay ama kan fadhiistay waa laga yaabaa dadka qaarkood inay u arkaan soo duduub percentkaynaga lumay iyo percentkaynu haynaa ee waxqabadka mid adduunyo mid aakhiraba isku daro kee badan أنا waxaan ku wadaa inta sii libdhaysaa inay ka badan tahay inta joogta
inta sii dhibres inay ka badantay inta jooga waxaa laga yaabaa inaa aragteen 2-3 qof oo Yurub inta ka soo noqdeen meelahan shaqooyin ka furtay oo la yiraahdo hebel Sweden buu ka yimi hebel Ingiriis ku ka yimi hebel Ingiriis ka yimi there were 1001 kunkii qof baa qof haysaan وميان ودنادان aanay joogin kunkii qofba qof haysta miyaan joogin kunkii qofba 10 haysta jooga wadanada tan Soomaaliya gudaheeda jooga Soomaaliya jooga hadii la eego dadka inta wax haysatay inta wax haysan kunkiiba way ka badan yihiin qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 ba ka badan yihiin laakiin dadka halka jooga markaad aragto mid baasaboor Mareykanka la yimi halkan company yar ka furtay ama mid Sweden ka yimi halkan company ka furtay ama mid Norway ka war 240 kun baa Norway joogay laba aragtana intii kala maada 40 kii kala xaga kuma qabtay 40 kun baa la maqan iyo dheeraad xaga kuma qeeyay yani waxa laga yaabaa inaan inta badan isweydiinin dadku marka waxay ku eegaan hebel ba sabir mustaamil heblayo ka war waa 1 in 1000 kama badna adoo dad si cararto 1 in 1000 ka inaad noqonayso mise 999 ka inaad ku biirayso labada probability ka aad u badinayso